kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal ku soo dhowaada meel sidaasi aan uga fogeyn magaalada caasimadda oo ah dalkan Mareykanka ee Washington DC waa duhurnimo xaggayaga axad ah oo bisha May sanadka 2026 ay tahay 17 waxaana qodobka guud ahaanba aan ku faaqidi doono arrintan ay noqonaysaa xiisadaha ka soo kordhay bariga dhexe gaar ahaan duqeynta lala eegtay goobaha lagu keydiyo nuclearka dalkaasi Imaaraadka Carabta taasi oo durbaba laga dheehan karo guud ahaanba gobolka in saansaan colaadeed uu mar kale dib u galay madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa hadlay arrintaasi muxuu ka yiri waxaa sidoo kale dhinaca kale jirto in marinbiyoodka Hormuz ay Iiraan ku soo rogayso dhaqaale ay ka qaadayso maraakiibta arrintaas oo si weyn ayaduna loo hadlahayo yaa duqeeyay Imaaraadka Carabta sidee bay waxyeello u gaartay goobaha lagu keydiyo nuclearka wadankaasi Imaaraadka Carabta dhammaan arrimahan ayaa hadaba waxa ila faaqidaya oo aynu wada eegi doonaa Cabdicasiis Barrow oo ku barateen Barrow Show Cabdicasiis soo dhawow bal warantii warkan waa war dhinac markii loo eego cusub oo aanan hore loo sii filayn maalmahan maadaama deganaashiir ay jirtay iga waran siday u dhacday duqeyntan lala eegtay Baraka nuclear plant oo ku taala Imaaraadka Carabta runtii markaa dib ugu laabato 18 saac ee ugu dambeeyay wararka gobolka bariga dhexe waa la filan karay weerar noocan oo kale inay dhici karaan marka dib loo eego hadallada ka soo baxaya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo waliba loolankii ugu xoogganaa oo gobolka bariga dhexe uu runtii dib ugu laabtay sidaad la socotay xalay bartiisa Truth Social waxaa sawir markab Hormuz taagan oo waliba dagaal soo dhigay Trump waxana uu ku soo qoray duufaanta ka hor deganaanta taasoo dadka qaamaan yiraahdee deganaashiyaha duufaanta ay ka dambayso taasoo marka macnaheedu qubaradu ay ku tilmaameen in uu yahay mid muujinaya cabsi iyo waliba waxa arrintaasi muujinaysaa baa leeyahay walaac ku saabsanayd dalka Iran mar kale dagaal inuu u bilaaban karayo marka weerarkan maxaa keeni kara yaa soo weeraray wadankan isu tagga Imaaraadka Carabta qubarada qaar oo warbaahinta waaweyn ka soo muuqanaya cid kale kuma eedeynayaan waxa leeyahay waa dawladda Iran oo diraysa fariin ku socota reer galbeedka si gaar ah madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa arrintan ka dambaysa goobtan marka aan u faahfaahinna dadkana dhageysanaya goobtan Baraka la yiraahdo waxa ku taala magaalo la yiraahdo ama deegaan la yiraahdo Al-Dhufra waana xarun nuclear ah socota nuclearka laba nooc ayaa loo isticmaalaa mid waxa loo isticmaalaa hanaan military oo dagaalada iyo waxa soo kale loo isticmaalo oo waa hanaan dagaalka loo isticmaalayo hubka la haysta qayb kamid ah waliba waxa la yiraahdaa Arabiga marka la joogo aslahatul fataka shamila ama hubka aadka wax u burburiya ama dimaaru shamilaydaan aad wax u baabiya waana halis runtii weyn oo qatar ku ah caalamka hadii aad loo balaariyo waxay dadku xasuusanayaan dagaalkii Mareykanka waliba Japan Nagasaki iyo Hiroshima uu ku dhuftay iyo qasaariyo weyn ee dunida gaarsiisay ayaa aad loo xasuusanaya marka waxaa jira MBT heshiis la yiraahdo oo dawladuhu ay saxiixaan oo loo diidayo in nuclear dunida uu ku faafo oo xakameyntiisa laga shaqeynaya ilaan hubkan halista ah haddii uu cid walba gacanta u galo waxa uu noqonayaa mushkilad weyn oo aadanaha masiibada uu ku baabi'in lahaa noloshiisa uu samaysanayo marka kan hadda ay dawladan isu tagga Imaaraadka ay isticmaalayeen waxa laga dhaliyaa quwadda tamarta ama waxa loo isticmaalaa korontada oo kale wadankan sida la socoto adduunka ayuu suuq u yahay oo dawlado fara badan ay yimaada Dubai oo kale waa la socota waa suuq caalami ah waxay leeyihiin warshado waaweyn oo shidaal ka sifeeya taawro waaweyn ka dhisan dad malaayiinaha ayaa ku sugan marka in generator ay isticmaalaan oo ay quwadda korontada halkaas ka helaan waa ka sii gudbeen marka nuclearka madaniga ah ayay isticmaalayeen oo nuclearka waxa loo adeegsanayay arrimaha madaniga ah oo koronto ka dhalinayeen sidoo kale waxa jira markii dhinaca caafimaadka iyo sayniska la fiiriyo kale waxa loo isticmaalaa arrimaha caafimaadka oo kale sida arrimaha kansarka iyo baaritaanada qotada dheer oo kale daraasaadka laga qoray ayaan eegaya maanta
waxa loo adeegsadaa arrimaha nuclearka marka hanaan madani ahna waa loo adeegsadaa hanaan military ahna waa loo adeegsadaa dowladaha marka ee dunida saddexaad iyo dunidan soo koraysa waxay u adeegsadaan arrimahaas taas marka waa loo ogol yahay ayaga naftirkoodana korjoogteen ayaa lagu hayaa marka dowladda Iran dowladda Imaaraadkan yiraahdeen waxay sheegtay xaruntan marka la weeraray in saameyn ay ku yeelatay halkaasi oo motor banaanka yaalay ay diyaaradda isqarxinaysa ku dhacday oo dab ka kacay oo la damiyay waa sida yiraahdeen digniin ayaa sidoo kale soo baxday waxay leeyihiin shicibka yaanay meelo qaldan wararka ka qaadanin wararkan qasaaro weyn ma jiro dowladda kaliya looga dambeeyo haddii kale cadowga taageeraysan ayaa hadalkooda ku sheegay war ka soo baxay Sultanka Imaaraadka hay'adda atomikada ee qaramada midoobay aan yiraahdee waxay ina war soo saareen waxay yiraahdeen marka la fiiriyo waxa meesha ka dhacay soo ma jiraan wax qasaaro ah iyo cabsi laga qabay iyo shucaac inuu baxo kale marka waxay leeyihiin laakiin in arrintan ay sahra dhacdo ayaa dhinac kale marka laga fiiriyo waxa uu yahay dagaal istiraatiiji ah oo la weeraro mid ka mid ah ilaahay ugu qiimaha badnaa dhaqaalaha waddankaasi Sultanka Imaaraadka marka laga yimaado Iran ma sheegatay ilaa iyo haatan in weerarkaasi iyadu ay ka dambeysay ilaa iyo hadda ma sheegan Press TV wakaaladaheeda wararka Faris Tasniim oo kale erna wakaaladda wararka ee dowladda kale waan eega ilaa iyo hadda dowladdu ma sheegan mana beenin hasaate waa caddahay marka qubrada hadalkooda la fiiriyo cidda kaliya ee weerari karaysa waddankan Sultanka Imaaraadka waa dhinacan kale Imaaraadka maxaa loo weerarayaa waa su'aal kale muhiim ah oo meesha ku jirta Imaaraadka sida la socotay Trump markii carabta u yimid oo lacagaha trillioniska uu ka urursaday saddex wadan oo carbeed Sacuudiga Qatar iyo waddankan la yiraahdo Sultanka Imaaraadka waxyaabaha ugu muhiimsan oo maalgelinta ay raadinaysa Imaaraadka waxaa ka mid ah kambaniyada teknolojiyadda Mareykanka inay habis ka samaystaan ama xarumo gudaha Sultanka Imaaraadka si Imaaraadka uu noqdo dowlad dunida aysan ka maad marka shirkadaha Mareykanka halkaasi jooga haddii ay Google noqon lahayd haddii shirkaddan OpenAI iskale ay noqon lahayd haddii ay noqon lahaayeen shirkaddan Microsoft shirkado fara badan marka meesha yaallo teknolojiyadda Mareykanka ka shaqeeya haddii marka xarumaha tamarta ee dowladda Iran dhibaatooyin loo geysto Imaaraadka dhibaatooyin loo geysto macnaheedu waxay tahay halbowlihii dhaqaalaha Mareykanka ayaa la dhibaateeyay oo weerarkan ma aha weerar kaliya ku dhacaya dowladda Sultanka Imaaraadka oo waa weerar xitaa saameyntiisu ay Mareykanka ku dhacayso waa sidaas aad sheegtay Mareykanku dabcan saldhigyana way ku leeyihiin waddankaasi Sultanka Imaaraadka Carabta hay'adda saad sheegtayba atomikada adduunka ee la yiraahdo magaceeda AIEA ayay u dacwootay dowladda Imaaraadka Carabtu waxayna sheegeen in dabcan Iran ay soo weerartay dronesna ay ku weerartay goobahoodii muhiimka ahaa hay'addu maxay ka tiri arrintaasi hay'adda ilaa iyo hadda waxa ugu weyn ay ka hadasho waxay tahay shucaac inuuna bixin oo qubrana la diri doono arrintan daraasayn doonta sahra arrintan waa xasaasi war ay dhacdo caadiya looma qaadan karo waxa dunida ka dhacaya laba sababood dartood ay imaanaysaa sida la socotay waaxda maaliyadda ee Mareykanku waxa ay dhawaan cunaqabatayn saartay ilaha dhaqaalaha ee hay'adda ilaalada kacaanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran dagaal adag oo dhaqaalana waxa uu ku socdaa waddankan Iran waxa la socota cunaqabatayna lagu sameeyay shidaalkooda crude oil-ka ahaa oo adduunka ay geyn lahaayeen waa la xayiray marka hadda dagaalkii militariga waa laga gudbay oo dagaalkii dhaqaalaha ayuu runtii si gaara u taabanaya arrintan maadaama Mareykanka marka dhaqaale ahaan uu naafaynayo waddankan oo xisaar uu ku hayo go'doomin ayana waxay doonayaan in ay aarsadaan oo tilaabadii lagu sameeyay mid la mida ay la yimaadaan taasi marka waxay keenaysaa in dowladdan Sultanka Imaaraadka Carabta oo ah dowladaha sida gaarka ah ee ula shaqeeya Mareykanka dhaqaalihiisana ay yaalaan in lagu sameeyo tilaabadaasi dowladda Iran marka tilaabo lamida waxay lagu sameynaysaa Al-Fujairah weerarto xaruntii shidaalka Imaaraadka ahayd haddana xaruntii nuclearka Dhufra meesha la yiraahdo weerarto Baraka la yiraahdo marka dagaalkan waxa uu noqonayaa tilaabadaad qaado mid ka xanuun badan qaadi doona
marka kasoo ka imaaraadka inay dhibaato gaarto cidda labaad oo miraha weerarkan guranaysa oo maraykanka waayahay waxaa jirta in durbaba wadamada kaleeto gobolka sida qatar oo kaleeto ay arrintan cambaareeyeen oo ay kasoo hadleen waxaa muuqanaysa in dagaalkii bariga dhexe lagu jiiday loogana bixi karo dabcan maadaamaysan miiska wadaxaajoodka qayb ka ahayn dalalkan golof stateska ee muslimiinta ah ee maaragtay golofka ku yaala ee muddaba saldhigyada u ahaa maraykanka israa'iilna saaxiibada dhowla ah muxuu yahay cawaaqibka dagaalka kasoo gaari kara wadamadan dabcan in badan oo kamid a ayagoo dagaalamaya xataa lama arko waxaa la sheegaa inay si weyn isugu hadleeyeen israa'iil iyo maraykankana hadda ayaga uma joojinayaan xataa dib uma eegaan wadahadaladii marka ay socdaan iyo xaaladaha ay jiraan maxay noqon kartaa marka mustaqbalkii dhaqaale oo wadamadan oo burburay haddaa si u fiirisid hoteeladoodii lama yimaado tuuristayaashii ma jiraan ama dalxiiskii diyaaradahooda lama raaco hawooyinkooda ma furno maraakiibtii shidaalka iyo wixii la halmaala kama bixi karaan oo hoos u dhac weyn oo dhaqaale ayaa ku dhacay marka mustaqbalka dalalkan bariga dhexe muxuu noqon karaa haddii xaaladdu sidaan ay sii ahaato waxaa jiray ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka qatar ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waraysi aad xasaasi u ahaa waxa uu siiyey telefishinka aljazeera isagoo maraykanka jooga jasim ayaa la yidhaha ninkaas waxa uu runtii soo bandhigay wax badan oo adduunka ka daahnaa waxaana ka mid ah arrintan gobolka bariga dhexe ka dhacaysa in aysan ahayn wax kidis ku yimid la ogaa 10 sanano qorshahooda ay socotay dowladaha carabtana ay ahaayeen cidda hurdaysa wala waxa uu leeyahay istiraatiijiyad ayay dowladda qatar soo bandhigtay oo ku aadan ciidamo u abaabulan sida naato oo kale oo khaliishka ama dunida carabta oo kale in la sameeyo khilaafaad jiraana sabab u ahaa in ay arrintaas shaqayn waayaan hadda maxaa dhacay marka waxa dhacay iyadoo aad og tahay gobollada xeebaha wadamada xeebaha haysta muhiimka ah sida Soomaaliya Suudaan Eritrea dalkan la yiraahdo Masar iyadoo loolama adag ay ka taagan yihiin iyo dalka la yiraahdo Yemen oo khilaafka uu ka soo baxay oo u dhaxeeya Sacuudiga iyo dalkan la yiraahdo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sahray dagaalkan dhacay arrintan marka ay timid marka Carabta naftirkeeda kala shakina waa jiray Iiraanna waa garaacaysay oo Maraykanka ayaa saldhigyo ku lahaa wadanihiisa loo garaacayay marka waad ogeyd oo xitaa Imaaraadka laga soo saaray dalka Yemen oo dawladda caalamku aqoonsan yahay cadan fadhisa ay u jartay waxa la yiraahdo persona non grata PNG ay u jiri jirto ay dhigi jireen wadanka nooga baxa ayana ay si degdeg uga baxeen markii kooxo gooni u goosada oo koonfurta ka soo jeeda gobolada Xadrulmawd iyo gobolada ku dhow Sacuudiga ay qallaasa ka abuureen Sacuudigana amnigiisa uu qatar u dareemay marka ayadoo loolankaas uu jiro oo Imaaraadka iyo Sacuudiga oo mugdigaas u dhaxaya ayuu Maraykanka dagaalkan galay Israa'iilna ay ku hogaamisay hadda marka maxaa taagan toddobaadkan inaad la socotay in kale inaad la socotaan runtii aad u filaya wargeyska The Wall Street Journal Washington Post iyo wargeyskan kale The New York Times oo Maraykan ka soo wada baxa dalka aad joogto warbixinay qoreen oo ku saabsan dawladda Imaaraadka inay wafuud u dirtay Sacuudiga iyo inay u dirtay Qatar oo ay leedahay dagaal abaabulan oo saddexdeena ah aan la galnay dalalka qaliijka intii aan ku reexi karno wadanka Imaaraad wadanka la yiraahdo Iiraan aan duqayno waxa la sheegay labadan wadan inay si cad u diideen oo ay yiraahdeen xaaladan hadda gobolka taagan iyo dagaaladan kuma milmi karno isla The Wall Street Journal warbixino laba ah ayuu qoray oo runtii aad isku daba socday oo ila sirdoon laga soo xigtay waa mare waxaa la leeyahay bishii Maarso aan ka soo gudubnay ciidamada cirka Imaaraadku waxay qayb ka noqdeen duqeymihii dalka Iiraan ka socday waliba meelo aad muhiim u ah ay duqeeyeen ayaa la yiri taa marka waxa beenisay wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Isutaga Imaaraadku waa beeniyeen Imaaraadka kaliyana ma ahayn waxay yiraahdeen sidoo kale Sacuudigana waa sameeyay Sacuudiga waa beeniyay saacadu u beeniyay wuxuu yiri go'aanada annaga waxba kama ogan ciidamadeena cirkana duqeyn maysan geysan laakiin wasaaradda amuraha dibadda Imaaraadka laba jeer ay kala hadleen mar waxay tilmaameen warkan inuu yahay wax beena oo aan suuragal ahayn sal iyo raadna uusan lahayn haddana markii uu shalay ama dorad mid ay taas saxad uma xasuusanayo wasiirka amuraha dibadda Iiraan Abbas Araghchi oo shirka BRICS ee ka dhacayay
waddankan hindiya magaalada new delhi uu ka sheegay in imaaraadku ay duqaynta qayb ka ahaayeen sirdoonka iiraanna ay ka hayaan xogtaasi in meelaha la duqeeyey war kale haddana isla shala soo saareen oo leeyihiin innaga wax kasta oo aan samayno waxay ahayd difaaca amniga iyo madax bannaanida qaranka dalkan istaga imaaraadka carabta marka imaaraadka waxaa cad marka dagaalka si toosa inuu ugu lug lahaa arrimahana ay dhacayeen mustaqbalka gobolka bariga dhexe runtii aad u kala duwan yahay dalalka sacuudiga iyo waad ii geli doontaa dhinaca kaleto ma las dhihi karaa marka barrowow duqayntan cusub ee maanta loo geystay goobahan halbowlaha u ah ee nuclearka dalka imaaraadku ay yaalaan arrintaasi awgeed oo ay xaqiijisatay iiraan mase waxaa la isdhihi karaa xabajoojintii iyo nabadeyntii dhinacyada waatan iskaba soo gabagabowda hadeertaan isla markaasina ay doonayso haatan iiraan in ay dib u bilowdo dagaalkii ma la dhihi karaa horta iiraan mar kastaba dagaal ay ku jirtay iiraan iyadaa la go'doominayay iyadaa duqaymo lagu qaadayay iyadaa bartilmaameedka waxa ku dhacaya ay ahaayeen hadda waxay ka jawaabayeen dagaalka dhaqaalaha oo ku socda oo kaliya maadaama ilihii dhaqaalaha waddankaasi oo dhan la soo xiray ciidamadii ilaalada kacaankana shirkadihii ay dhaqaalaha ka heli jireen waaxda maaliyadda maraykanku ay cunaqabatayn saartay weliba lacaga ballanqaadya oo malaayiin dollara loo ballanqaaday ciddii xog keentay in la siin doono waxa ay rabtay inay jawaab bixiso oo ay leedahay ilan qaniya kaa fujise waxa maraykanku uu kugu samaynayo wax la mida samee arrimahaas horta muhiimku ahaa warbixinada taxliilka ku qoraya warbaahinta carabta ama telefishinada ka soo muuqanayay runtii waxay aad u saadaalinayeen in dagaal gobolka bariga dhexe uu galo hadda ay lagama maarmaan tahay oo in la adkaado loo baahan yahay iiraan marka qudheeda dagaal warbaahinay gashay aragtiyo aad muhiim u ah oo aan rabnay inaan dadka u sheegnay iibinaysay waxaa ka mid a nidaamkii caalamka inuu isbedelay wall orderkii dunida galbeedka u janjeeray maraykanka uu ka ahaa owrka inuu hadda meesha ka baxayo oo dowladda iiraanna ay noqoto cidda ku dhaca maraykanka lagu dhici waayo hadda ay jebinayso marka waxay leeyihiin adduunyada waa wareegaysaa adayga iiraan ee maraykanka ay ku samaysanaa runtii waxay noqotay mid maraykanka uu ka sheekayn doono trump marka hadalkaas haddii aanu ka jawaabin noise of news ama waxa la yiraahdo samaynta wararka iyo jihaynta ummadaha dowladaha awoodda laha sameeya marka iiraan hadda waxay noqonaysaa cidda wararka dowladda ayaana lagu dumiyaa warbaahinta iyo sida dadka loola hadlo waxaad xasuusataa gugii carabta kaliya ma ahayn dibadbaxyada laakiinse wixii lagu dumiyey oo salka loogu jiray rag maaragtay sodomeeyo sano qaarkood meesha joogay waxay ahayd dabcan social mediaha iyo oo markaas soo ifbixisay iyo sida warbaahinta ololaha looga qaaday aad iyo aad marka dowladdan iiraan iyada hadda marka wararkii waaweynaa ee adduunkay samaynaysaa jihayntii istaraatiijiyadda caalamkay ay jaangoynaysaa tallaabooyin istaraatiijiyana way qaadaysaa saaka oo kale waxaa hadlay la taliyaha sare ninkan mujtaba khamani loo yaqaano la taliyihiisa saraa hadlay waa ninka aayatullaahiga waddankaas ah waxa uu leeyahay trump waa damiin istaraatiijista ah tallaabooyinka uu qaadayo dhanba ma fahmayo marka annaga tallaabooyinka aan qaadayno ka jawaabaya uu leeyahay marka adduunkana waa jihaystay dowladdan boo maraykan la yidhaaho awoodna ma jirto uu leeyahay iiraana hadda kadib wax jaangoynaysa innana waxaan ku biiraynaa quwadaha waaweyn ee adduunka hadalkii sidaas uu leeyahay markuu hadalkaas soo baxay isla markiiba wakaaladda ku dhow arrimaha ciidamada ilaalada kacaanka iiraan tasniim la yidhaahdo ayaa war soo saarta waxay leeyihiin murshidka ugu sarreeya aayatullaahiga iiraan isna waxa uu u magacaabay maxamed baaqir qaalibaaf oo guddoomiyaha baarlamaanka iiraan ahaa in xiriirka istaraatiijiga ah iyo wada shaqaynta u dhaxaysa shiinaha iyo iiraan isaga gacanta loo geliyey marka waa malaf wasaaraddii amuuraha dibadda laga soo qaaday oo la weyneynayo oo la leeyahay malafkaasi guddoomiyaha baarlamanka la wareegay isagaana ka shaqaynaya shiinuhu inay qaadayaan tallaabo waxaanoo dhanna waxaa la leeyahay ruushka iyo shiinaha ayaa gadaal ka taagan oo rabo maraykanka dagaal weyn intuu u dhaci lahaa inay bannaanka ku alamitaysiiyaan oo bannaanka ay ku dhigbixiyaan
beddelkii iyagu ay wajahi lahaa maadaama ruushkan ukraine lagu dhiigbixiyey oo reer galbeedku ay dhaka fiican u keeneen dhinaca kale shiinahana waxay leeyihiin waa inaan maraykanka halkan ku dhiigbixinaa marka quwadda dahan oo aan la taaban oo aan tallaabo qaadin waxay noqonaysaa dowladda shiinaha marka shiinaha ma wuxuu noqonayaa dhexdhexaadiye istaraatiijista oo caalami ah ma wuxuu noqonayaa dowladda adduunka ka doobisa mise waxaa isna la gelin doonaa dagaal dhigbaxo waxaa lagu fasaxi doonaa Taiwan marka quwadaha intay is arkayeen ka hor ayay bannaanka isku dhigbixinayaan taasoo la leeyahay waxaa laga baqayaaba haddii ay sidaan iyagoo dahan wada joogaan dagaalkii nuclearka inuu dhici lahaa marka waxaan oo dhan sirdoonka ka adeeganaya ayay leeyihiin telefishinada iyo dadka wax taxliiliya aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga iyo falanqayntan suuban barow aad oo maasanta